السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوال مغالوس بريس هذا نقول صبت هاي سبسكرايب نوسار آد بدو ما سنتهي حدي آتهاي قف مسلمة الدين تا إسلام كالرسمية حايستها دي أديك آتهاي مؤكتهاي الدين تا الإسلام كأنه وير لغوية هاي أول الروا إن دين تا هذا لغا سارو عدايمو oo bannaanka yaala oo aan qarsamayn baan idin tusi doonaa. Marka hore dil lagu xukumay haye nimanka jigjiga jooga ee Soomaaliyeedna ay hogaaminayaan qoyskan reer macallin hogaaminayaan wax waajib ku ah ninka la sheegay ee jigjiga jooga ama Addis Ababa jooga ee wax ka sheegay duraya diintii iyo dadnimadii Abubakar iyo Umar iyo Aisha iyo Xafso waa in adduunka la dhaafiyo muslim qofka dilka lagu xukumay oo wadaadkan uu dilka ku xukumay waa qof Soomaaliyeed. diinta islaamka oo shariifka oo khayrka badan aan haysano haddii aynu nahay dadka muslimiinta ah diinta islaamka waxaa la rabaa in bannaanka noogu saaro oo maaragtay diinteena laga dhigo diinta buudiyada oo maaragtay diimaha kiristaanka in diimaha islaamka diinta islaamka inti dad laga saaro diimaha kale in madax dad loo geliyaha horta la rabaa. diinteena islaamka in weerar lagu yahana qof kastoo muslima wuu og yahay. qof kasta oo muslima oo ilaahay garaadi oo caqli oo maskax oo ilaahay siiyay wuu og yahay diinta islaamka inuu weerar lagu yahay. diinta islaamka maanta dadka weerarka ku ah marka laga soo tago gaalada iyo kiristaanka gaalada cadka marka laga soo tago maantay gaalada caddaanka rasmiga ah mase gaalada caddaysatay inay diinta islaamka haysanin dadka caddaystay markii laga soo tago dadkaasi markay diinteeni wax ay rabaan iyo si kasta ay rabaan wax kasta ay sheegeen markii naga saari waayeen waxaana noo adeegsaday dad jirka maartay jirka kor ah aad moodi inay muslimiin yihiin markay dhawaaqayaan ay muslimiin ku yihiin markay hadlayaan muslimiin ku leeyihiin markay garta odayaasha dadka meesha iskugu yimaadeen markay la fadhiyeen ay ku leeyihiin muslimiin laakiin ay yihiin dad gaalada u shaqeeya oo fikirkoodii gaalada inti loo soo dhiibay la rabo mas loogu talagalay in ay ka iibiyaan muslimiinta cadcadag oo diintooda ku cadcadag inay ka iibiyaan loogu talagalay baa maanta dunida ordaya. horta ninkii asiga diintiisa intuu ka baxo mase diinta islaamka qofka intuu ka baxo oo maartay nabigaaga waxa ka sheegin oo diintaada waxa ka sheegin kitaabkaaga waxba ka sheegin laakiin intuu diintiisa ka baxay iska aabusay hortiis u baxayna waa la gartay. maanta gaalada waxay ku guuleysatay afar shay bay ku guuleysatay. kow nin ku af ah oo markuu kula fadhiyo reer qabi reer in adeer ah oo markuu kula joogo qaaraanka maartay kula qeybsada oo goosha kula fadhiya oo aad moodid in uu yahay muslim adag aad moodid oo ku yahay inuu muslim yahay oo maanta waxaa jira gaalada dadku u adeegsatay oo gaalada kuu soo adeegsato oo wixii gaalada ay rabaan kaa dhaadhiciya wixii gaalada rabaana cafka kuu geliya. haddaba antaas marka laga soo tago gaalada maanta waxay samaysay barnaamijyadoodii mas ay lahaayeen mase diintooda kiristanka ah markii muslimiinta ay qaadan waayeen ay ogaadeen dadkan inay yihiin dad adag inay yihiin markay ogaadeen waxaa lagu soo diray kow horta qof Soomaaliya laba waxaa lagu soo diray qof markuu kula fadhiyo aad moodid inuu yahay muslim markuu kuu sheekeynay uu yahay in qabiil in adeer in abti
laakiin fikir ahaan waxa gudihiisa ku jira ay yihiin ciisa ilaahay ah iyo jinka hal aabudo insaanka maartay bani aadanba ma aha nabi maxamed maartay ii sheegada barnaamijyo badan dad aaminsan baa dadka lagu soo daray si loo waday maanta xeer waxaan na gaarsay in la yiraahdo si loo waday maanta xeer la gaarsay la yiraahdo islaanta iyo ninka xuquuqtooda waa jin way sameyn yihiin dhaxalka waa jin islaanta haddii la guursado mar bay shaqayn kartaa ninkana mar uu shaqayn karaa ninka guriga uu ku shaqayn karaa xitaa islaanta islaan kale guursan kartaa ninkana nin kale guursan karaa barnaamijyo si loo soo waday xeer waxa la gaarsiiyey adigoo muslima la og yahay inaad damiir leedahay inaad danqasho leedahay in uu dhiigaaga kacayo mar haddii diintaada waxa laga sheego dhiigaaga ayadoo kacayo aado og baa nabigaaga la caynaya allahaagii ku abuurtay la caynaya kitaabkiisana la caynaya laakiin waxa ilaahay fadligiisa alxamdulillah ilaahay fadligiisa qof kasto diinta waxa ka sheego rasuulka aayo ilaahay aayo kitaabkiisa aayo hadduu uu ku dhex nool yahay kun qof oo muslim ah meel ay ku nool yihiin hadduu uu ku dhex nool yahay way adag tahay ninka meeshaas uu adkaysto mas ugu noolaado way adkaanaysaa sidaasi daraadeed qofkaasi si kasto uu gaal u yahay mase si kasto diinta islaamku waxa ugu sheego waxa qasab ku ah waa inuu ku noolaadaa diintu uu aaminsan yahay mase diintu uu fikirkeedu ku duul yahay mase diinta fikirkeedu uu ku socdo dadka ay qaateen mase dadka diintaas dadka haysto meesha ay ku nool yihiin waa inuu ku noolaadaa qasab waa sida ninkan oo kale ninkan waa la wada garanayaa soomaaliyada isan garanayna ma jirto intuu jeer uu nabiga aayay ilaahay uu aayay xisaab ma galaan laakiin markuu maalinkii uu nabiga wax ka sheegay uu nabigu uu aayay isla maalinkaas laba maalmood ka bacdi wuxuu qiray meeshuu nabiga uu ku aayay inay ahayd meel ay si mudnayn nabiga in lagu aayo sababtoo ah naftiisoo dhan ayaa kheel gashay qof waxaan jaba banaanka hadduu soo baxa la leeyahay waa ninkii nabiga aayay oo maaragtay aan dhaqaaqi karin oo guri uu ku noqday xabsi guri uu noqday xeer markuu dambe intuu warbaahin soo fadhiistay yiri hadalka aan yiri waa ku qaldamay muuqaalka kelmadaha ugu horeeya haddaan idin tuso waxaan idin tusi doonaa diinta islaamka meesha loogu soo duulay bilow ilaa iyo dhammaad halkay ku dhammaato halkay ka bilaabato baan idin tusi doonaa marka hore ninkii diinta wax ka rasuulka caayay waa kana habeenkaaba wala shaatay ilaahayna oo toobad keenay intaas oo dhan deeyaan gaal maanayne waxaan la wadaagayaa horta maqaldamo waa ilaahay nabigana ilaahay baa xulay ilaahayna oo kiina abuurtay horta waa qaladkii ugu weynaa ee noloshayda aan galo qofka maanta qof xumaantiisa faafiyana ilaahay boqol xumaamood uu leeyahay uu faafinayaa ilaahay waxaan weydiisanayaa toobad ilaahay waxaan leeyahay deedka qalad ma galay ilaahay baan qalad ka galay ilaahay baan qalad weydiisanayaa horena waan weydiistay imikana waan weydiisanayaa waxa xusid mudan in dhacdooyinka la xiriira arrintaasi ee ku saabsan aflagaadada diinta iyo marka hore horta inaad nabiga aayso adigoo sheeganaya qof muslima adigoo sheeganaya inaad horta nabigaaga aayso nabigu waa kan yiri maalinka qiyaamo ee ummadda ay qaab ku jirto ay ummadda cadaaban tahay ummadayda anaa u shafeeda qaaci doona anaa u shafeeda qaadi doona maalinka aakhiro la qaawin yahay la qatniya la dhibaataysan yahay
ummadayda anaa u shafaaco qaadi doono waa ninkii yiri waayo qofka la caynayo diinta islaamka waxayna faraysaa qofkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ninkii caayo in la dilo diinta islaamka ayaa sheegayso nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ninkii waxaa ka sheego in la dilo oo dunida la dhaafiyo horta diinta islaamka sheegayso haddii aan ku dhaqmayno waa sidii ilaahay noo amray haddii loogu dhaqmayo qofkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii caayo in la dilo diinta islaamka ayaa qabto taasi muranka ma taagno haddaba diinta islaamka adigoo muslima in nabiga lagu horcaayo diintaada waxa laga sheego kitaabka lagaa shaka geliyo oo diintaada dhanba adi lagaa shaka geliyo koo waxaan idin waxaa lanoo adeegsaday dad jismiga soomaalilana ah afka ina qabeen lana ah oo qaaraanka isla qaybsano oo gogasha isla fadhino ayaana noo qaybsan yaa hortana noo soo diray taasi oo ka bilaabatay janalkan maxaad doonaysaa inaad la wadaagtid aad jeclaan lahayd waxaan rabay inaad shahaadada ay qabataan oo toobad keentid oo kristan noqdo oo christian aad noqotid okay waxaad tiraahdaa rabbiyow ilaahayo maanta waan kuu toobad keenayaa janalkan aad arkaysiin waa janalka keliya diinta kirishtaanka u ololeeya oo qof kastoo soo qabsado barnaamijkan ka soo qayb galana dadka iska dhiciya waxaan inay diin yihiin oo maaragtay isla markii laga dhaadhicinayana 10% mase 5% ka mid ah waa inay diinta nimankan u yeerayaan waa inay isla marka hore ka qaataan sababtoo ah yacni gaaladu u carbisay diinta islaamka dadka sida loogu saari lahaa iyadoo qofka la handadin oo waxaba maaragtay dhibaato loo geysin in qofka laga geliyo dhan kasta uu maaragtay diintiisa uu ka aaminsanaa inta barnaamijka laga geliyo oo ay qasab ku noqonayso markii dambe diintii uu ku dhashay islaamka inuu yiraahdo diintan diin jirtaba maaha meelaha qaar nimankan dad diintooda rasmiga ku dhagan dadka diinta islaamka shariifka dadka aaminsan meelaha qaar markii dooda la galo mase sida janaalka oo kale markii dadka ay soo qabsana dooda la gelayo xitaa waxay ku qasban yihiin doodaha qaar markii la weydiinayo ay yihiin waxa la weydiinayo waxa dhabaya diinta islaamka raad ku leh mase si rasmiga markii muranka loola galo 70% su'aalaha la weydiiyo kama jawaabaane waxay boors ku qaras bay sameeyaan muran iyo dood in ay kaa cafbadiyaan oo ay maaragtay ay tooda keli ay kaa dhaadhiciyaan adiga aad rabto in ay gasho bay kasoo horjeedaan sababtoo ah gaalada qofkan oo kale maal bay ku siisaa hanti bay ku siisaa lacagay ku siisaa si adiga diintaada lagaaga saari lahaa weliban waa loo carbiyey adiga haddaa kitaab shariifa oo diintaada haddii la kala baxdo waxa ay kuu sheegayaan mar kasta waxa la sahan wax ay kuu sheegayaan taada waxba maaha si kasta oo u qayliso adigu waxaad u sheegto mar kasta waxa la sahan tooda la sahan taas markii laga soo tago halka noo dhigo si u wadaan waxay gaarsiiyeen diinta islaamka waxay ku dhahaan waa diin halaaga oo maartay la isku haleyn karin meelaha diinta islaamka ay ka jirto waa meelaha qaraxyada ka jirto oo la isku dilo la isku baabiciyo tani markii ka soo tagno oo halka noo dhig markii laga soo tago haddana waxa laga soo galay diinta dhaxdeeda inta lagu yimid waxa lagu dhahay ninki iyo nin ba isguursan karo haddana si loo soo waday waxa lagu dhahay naagti waa isguursan karaan si loo soo waday waxa lagu dhahay ninka iyo naagta dhaxalkooda mase maaragtay wax ay qaataan mase waxa ka dhaxeeyo mase maadaama diinteena ay sheegtay naagta iyo ninka inay samanayn
ayaga waxay ku dhaheen way sameeyeen markaas xeer waxa lagu gaarsay in lagu yiri muslimiinta dumarka waxay u diideen inay siyaasadda ka qayb galaan muslimiinta waxay u diideen naagaha waxay u diideen inay maartay isku jinsi noqdaan muslimiinta waxay u diideen bay ku dhaheen ragga iyo ninki iyo naagta inay isku xuquuq noqdaan bay ku diideen sidaasay daraadeed diinta aad haysatiin diin jirta ma aha marka diinta ana sahan wax kasta way santay sidaasay daraadeed waa inaad diinta ku soo biirtaan markaas si kasto adiga diinta aad ugu qanacsantahay aad ugu dhagantahay diinta aad ugu dhagantahay xitaa haddii aad la timaadid caddeyn rasmi ah mise daliil rasmi ah haddii aad la timaado hataa xeer waxay ku gaarsiinayaan inay ku dhahaan markii ay ogaadaan inaan meesha ka foqeynin xitaa in maal lagu soo bandhigo xanta lagu soo bandhigo mar haddaad diintaada haddaad iibsatidna waxaad tahay kaafir baa tahay sidaasaa diinta uga baxday meelaha qaar waxaa arkaysaa doodaha qaar muuqaalka yarka waxa laga yaabaa inaad horey u aragteen meeshaan waxaa isku helay koox dumaraaba isku helay laakiin kooxda dumarka waxaa ku dhex jirta islaam faafisa diinta kirishtaanka faafisa ku dhex jirta oo aaminsan ragga iyo dumarka waa jin ya ragga iyo dumarka way saman yihiin islaam aaminsan baa ku dhex jirta laakiin islaamihii meesha kula jiray meesha la joogay waxay noqdeen islaamo diintooda islaamka og waxay tahay ku qanacsan oo ku faraxsan baa helay xeer markii dambe la gaarsiiyey in ay ooyso ay tiraahdo waxaan rabaa in aan samanaano ya in aan sanaanaan rabaa oo markii dambe xeer la gaarsiiyey raggeena iyo dumarkeena haddii la yidhaahdo ilaahay ma samina diintan adag noo sharax maysidee naftaada u sheeg marka hore muuqaalkaa dhegeyso gabadha la kufsado kama hadashaan xaaga naagaha Soomaalida ka gala adiga anigu walaal baxan qof waxba u gubtaa dumarka Soomaalida waxba kaama gelin wax gartay Soomaa naftaada only difaac family mid badan fahmayn adu ma loo yarbaatan xarakada ka saareenaa hooyo family aan ku faasiya laakiin qof waxba u gubtaa ay gadaynaade runta u sheegday inta asmaay dhibaatada hablaha haysatay uga toodaysa hablaha halka lagu haystaa okay ana ku sheegay waxaan doonayaa inaanu yeelano sinaanta ma garanaysaa uu leeyahay madaxweynaha waxaan rabaa inay noqdaan madaxweynaha hablaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inay dad wax bartay noqdaan naahade asmaay ilaahay inuu muusimin ana runta ku sheegay dhageyso ilaahay inuu muusimin ana runta ku sheegay dhageyso dad islaamaan nahay inaad ilmacaan afaarahan iskaga bax ragii dumarna ilaahay muusimin waxa madaxweyne iyo maxay dumarku noqonaana quraanka ilaahay kuma wataal ta ilaahay noo sheego meeyno raacina ee xaq ama fahanteen adeer ilaahay quraankiisa wuxuu ku sheegay in dumarku dumar yihiin oo guryahooda ku dahsoonaadaan marka afaarahan iskaga baxbaan ku walaal macaan naag dhibaataysan oo inta soo dul fadhiistay ku tiro wala dhibaataysan ma jirto xitaa haday jirtana ma awoodid naagaha aad u doodaysa xabsiga ku daboolan anigu ma garan iyo kuwan budka la ayaad leedahay ha laga daayo ma ogi gabadha la kufsado kama hadashaan maama justice la yiraahdo baa jirta oo 40 sano ka hor la kufsaday Soomaaliya fahma fiican baa kamid ahayd oo social media ku jirta oo weydeen oo iyadoo la kufsanayo la soo duubay oo la drag gareeyay ninkii magbaa laga qaatay ka bacdina dib baa la geeyay hal gabadh oo aan dhalay hadda fahansiiyo oo ku raada gabdhaha Soomaalida xuquuq baa ka maqan oo ila istaagto gabadh kale hadda ila istaagto hal gabadh hadda ii maqasho hadalkayga maqasho horumar baan gaaray dumarka Soomaalida waxba kaama gelin wax gartay Soomaa naftaada only difaac we can change waan bedeli karnaa in gabadha shuruuc yeelato oo gabadha sharci yeelato mida ku sheega ma beentaaba harto meesha jirtaba hadda waxay tiri fahmiyay diya laga qaatay ana ila dhalato diyana kama aan qaadanay ninkina waanu tooganay islaantaana waxa islahaad maanta dumara meeshan ku soo fuulay dumarka meesha ku jira diintaada ka dhaadhiciyo diinta islaamka banaanka ugu saaray dhammaantooda gaala ka dhigba islahayd laakiin waxay ogaatay dadka meesha la saaran inay yihiin muslimiin dhabba inay yihiin markay ogaatay
oo afarta dhinaca laga galay oo hadal kasto aysan ka filayn markii madax laga saaray ayaa waxay la soo booday in aan sanaanaan rabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qur-aankiisa ku sheegay dumarka iyo ragga inay samanayn ilaahay baa sheegay sidaas daraaddeed waxa ay rabtay inay kitaabkeena shariifka inay banaanka u saarto oo diinta kirishtaanka ku soo biirsay rabtay laakiin ayadii ayaa waaga ku beriyey taas marka halkaa noo dhig horta in kitaabkaaga diintaada in wax laga sheego oo kitaabkaaga maaragtay lagaa sheeko geliyo diintaada lagaa sheego geliyo koo waxay ka bilaabanaysaa marka hore in marka hore hortaada nabiga lagu aayo aada dhegaysato meelaha qaar tiktok marka aad marayso sida ninka kaafirka hadda muuqaalka aad soo aragteen oo hargeysa intuu nabiga ku aayo uu harsin waayo markii dambe raaligelintuu ka bixiyey diinta islaamka ninkaani markii si rasmi ah loo fiirsho inuu dunida kusii noolaanin ayaa diinta islaamkana faraysay laakiin wax maanta dhacay ilaa sacaddan uu joogo waa nasiib daro ha iska noolaado laakiin mar buu la kulmi doonaa iqaab uu faranayni horta dadkaani oo kale markii dhibaatada oo kale markay sameeyaan ninkii salmaan mumuyka kaafirkii guriga ku dhex baktiyey darad asigoo la difaacaya oo xataa ciidan ilaaleen loo sameeyey oo guri keligiisa ku jira ayuu ku dhex noolaan waayey xanjabaado iyo maaragtay kumentiyo loo qoray la leeyahay guriga aad ku nooshahay baan la soconaa halkaa maraysaan ognahay inaad tallaabo qaadaa lagaa rabaa oo aakhirkii dowladdii hataa ammaan siisay ay faraha ka qaaday ay tiri niyow ammaangelid iyo maaragtay nabadgelid waan kaala laabanay meesha rabta aad yidhi halkaa antuu ka duulay waddamo kale ka degay oo halkaa ku dhintay horta diinta islaamka inay xoog badan tahay xitaa gaalka way ogyahay gaalada xitaa way og tahay laakiin waxa maantay sharaf daro nagu ah annakii oo Soomaali ah dunida markii la joogo waa dalka keliya mase dowladda keliya dadkeeda yihiin 100% muslim yihiin ay Soomaali tahay in ay nagu dhex jiraan waxaan oo kale inay nagu dhex jiraan oo waxaan oo kale nagu dhex jiraan oo afkana la sheeganay inuu hebel yahay oo diinta nala sheegay inuu muslim yahay kula sheeganay oo jismiga Soomaali ka ah oo haddana qabiil hebel kula tirsanay qaaraan kula tirsanay nabigaaga caynaya diintaada waxa ka sheegay haddana waxa ka dhigi karin oo haddii wax qabato mas waxa ka tiraado qabiilkaaba qaylinaya ya qabiilkaaba qaylinaya diinta islaamka in lagu soo duulay id kasta way ogtahay laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay maalin waxa la gaari doonaa ninka diinta islaamka oo haysto diinta islaamka gacanta ugu jirto ay ku noqonayso nin dhambel dab ah gacanta ku hayla noqonayso sidaas oo kale ku noqonayso baa la gaari doonaa sababtoo ah diinta islaamku waa diinta keliya ku damaanad qaaday inaad jannada galayso inaad cadaabna galayso sababtoo ah haddaad diinta ka tagto inaad cadaab galayso rasuulkaa noo sheegay ilaahay baa noo sheegay ya kullu shayin haalikun ilaa wajha id kasta way dhamanaysaa laakiin inaad ninkii ku shafaaco qaadi lahaa maalinka aakhiro iyo kitaabkii lagu shafaaco qaadi lahaa adigoo xayaata ah nool inaad maanta cayso wax ka sheegto rasuulka cayso laakiin ay kugu dambayso 3 mitir dhulka inta lagu qodo lagu duugayo wallaahi adaa naga iqaab badan adaa naga iqaab xun adiga maartay iqaab adaa naga kulun ilaahay u toobakeen ilaahay u toobakeen marna nin rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin caayay in dadka ku dhex noolaadaay diinta islaamka ma farayso sababtoo ah ninkii cafin lahaa waa nebiga ma noolo maanta nebiga ma noolo nebiga cafin lahaa hadduu nool yahay laakiin ninkii nebiga caayo in la dilo diinta islaamka ayaa sheegayso waana qasab waa in la dilaa qasab waa in la dilaa ilaahay diintana hanagu sugo ilaahay kitaabkana hanagu sugo bilis codkaan yarka hadduu kusoo gaaray anti aan qalday waa shaydaan iyo camalkiis ilaahay ha iga cafiyo anta waxa ka faa'iidana
ilaahayna hana ugu canfo dhammaantood ilaahna ugu canfo waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii saarto sii gaarsiiso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu